Suldaan Maxamed Nuur Abu Sufyaan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliland ayaa waraysi qaas oo maanta siiyay telefishinka Bulsho TV ayaa waxa uu kaga warbixiyay arinta muranka badani ka taagan yahay ee saami qaybsiga kuraasta aqalka golaha wakiilada. Suldaanka arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri inaad nagu soo jeedisano fiicanta anagoo aan la socono. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. waxaan ognahay jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran isu tagay iyo runtii shacab gobollo kala duwan ku nool. waxaan ognahay maalmahan in aad hadalhaynteedu ay u badan tahay saami qaybsiga golaha wakiilada. golaha wakiiladu waa gole matalaya shacabka reer Soomaaliland iyadoo saas ay jirto haddana waxa jirta ummad runtii waxa way degan dalka koone ilaa koone oo gobol kasta ay markaa qayb ka degan tahay. ummadaasi 22 sano ee Soomaaliland ay jirtay may ku lahayn waxa weeyaan golaha wakiilada cid ka wakiila oo xaqeeda ka hadasha. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wuxuu in badan ku dadaalay sida ay uga muuqan lahaayeen golaha wakiilada. way wuxuu dareemayaa maadaama siyaasi weyn oo rugcadaaya uu yahay haddii ummadda noocaasi ay golaha wakiilada ka maqan yihiin in qarannimada Soomaaliland wali wax la tabayo ay wax ka maqan yihiin. geesta kale waxa uu fariin ku saabsan arrimaha saami qaybsiga kuraasta wakiilada u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxaanu yiri mudane madaxweyne nimankii axsaabta qaranka haystay waxay yiraahdeen xiniye uma lihin inaanu markaa waxa weeye u qaybino saamiga markaa waxa weeyaan beelaha ama qabaa'ilka reer Soomaaliland. adigay xiniye ku bideen oo madaxweynaha naga xiniye buuran bay yiraahdeen. waxaan leeyahay markaa mudane madaxweyne xiniyahaaga buuran ee lagu tuhmayo leeyahay isaga ku qaybinaya waxaanu ka codsanaynaa inaananu qaybtaada ku qadin inaadan taariikhda meel madow aadan ka gelin 22 sano inaanu ka maqnaano golaha wakiilada haddana maanta adiga ay kugu soo noqotay inaad qaybiso haddana haddii aanu gacantaada ku weyno oo aanu kaga maqnaano waxaad ogaataa inay taariikh xumo kugu tahay. Axmed Yaasiin Maxamuud telefishinka caalamiga ee Bulsho magaalada Hargeysa.